السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي لما أنا قيارت كحرن جنة الكسود وهذا إن عشر كنا مانتو وحكوس سبسين ياهي وحلقوا عابو ديسكافا تشيك وحالي هذا مركب حبين هذا أي سمي صد دقاق قاسنا أي كنساتو إن بقر كاسو هرجيدو وقلت جيك ديسكافا تشيك رنتي آد أي وحوق بدنتاي وحانا قصب إنو كفل عليو عدوغاغا it means hadda example ka fiirisid boqorkan check ayuu ku jiri lahaa haddii uu fardaha joog leen sax marka haddii uu fardahan dhaqaaq sameeyo waxaa la yiraahdaa discover check oo wuxuu helayaa check waxa jeegta sameynayana ma ahan isla fardahane waa qalcadda gadaal taala waxa sababayo sababtoo ah boqorkan hadda jaga ku jiri lahaa sax laakiin cidda dhex taalo oo ka celinayso waa xubnahaagii so marka uu fardahan dhaqaaqo waxaa la yiraahdaa discover check ciyaartan hadda waxaa dhelay morphy hadda daan position dib u celino fiiri si uu discover check u helo wuxuu sacrifice ku sameeyay kuwiintiisa oo wuxuu dilay fardahan sababtoo ah waxaa isku furmi doono qalcadan iyo kingigaas way is arki doonaan laakiin cid baa ka celinayso yaa waayo waa xubintaada okay discover check aad ayay muhiim u tahay markii aad dheelaysid ciyaartaada waana tactic ay tahay inaad barato fardaha wuxuu tagay c6 check kingiga waxaa qasabaa inuu dhaqaaqo oo wuxuu imaaday f6 saas awgeedna kuwinta waxay noqotay free oo kuwintii sacrifice oo morphy ku sameeyay uu soo ceshtay wuxuu ka faa'iidaystay discover check example kan kale haddii aan u fiirsano isku day balbazalgaana waa discover check inaad xaliso discover check maxaan idin iri marka boqorka cadowgaaga uu gali lahaa check balse xubintaada ay daboolayso yacni boqorkan hadda madow check ayuu gali lahaa balse oo kuwinta fiiri kuwinta se u hayso balse cidda hortaagan yaa waa qalcadeenni so qalcadda mar alla markay dhaqaaqdo wuxuu gali doonaa check so sidee ugu faa'iideysan lahayd marka sababtoo ah waxaa qasab horta checktan imaada in laga falceliyo oo xubinta meel alla meesha aado marka laga reebo meel boqorka uu joogo waxaa qasaba in aan la taaban karin oo boqorkan laga falceliyo so isku daybal rook a7 check waxaa qasaba boqorkan inuu dhaqaaqo option ma lahan waxaa qasaba marka boqorkan inuu dhaqaaqo qalcadana la iskaga qadeeyo sababtoo ah qalcadena lama taaban karo boqorkan ayaa check ku jiro waa in laga falceliyaa king g8 and rook takes a8 example kana waa liges basilis waa discover attack so how can you do it bal isku day black ayaa guuritaanka leh sidee ayuu discover attack ku samayn karaa ugu horreyntii qalcadan madow waxay dishay f2 kingigana ma dili karo oo wad difaacan yahay qalcadan waa difaacan tahay waxaa difaacay bishopkan sidoo kale qalcadanna ma dili karto actually waa dili kartaa laakiin haddii ay disho waa checkmate boqorka meel uu aado malaan qalcadanna waxay gelaysaa haddii soo noqon lahayd haddii dib u soo noqon lahayd iyada ayaa bin ku jirto cashirkaas waa soo qaadanay so kanna ma dili karo oo boqorkaana kama ordi karo kama baxsan karo discover attack waxay noqonaysaa checkmate marka si kale waa inuu ugu falceliyaa at least waa inuu marka askari dhaqaajiyaa denna waxaa dhacaya meeshan discover check boqorkan wuxuu ku jiraa check oo bishopkan ayaa wuxuu ku hayaa check maybe in askarigan lagu soo durjiyo denna kuwinta la iskaga qadeeyo so that's one of the example of liges haddaba example kan kale aan fiirina marka sidee baan u samayn karnaa discover check ma isku dayday maxaa lisay aniga waxaan rabaa aad already waa arkay bal solutionka waa arkay first aniga waxaan arkaa in horta discover attack uu meeshan ka dhici doono kuwiintaana ay u dhamaatay oo waxaa la samayn doonaa rook sacrifice qasab waxaa marka in la dilo waxaa isku beegan marka fiiri waxaa isku beegan oo si diagonal iskugu aadan boqorkii iyo kuwiintii laakiin si yaa jeegta ka celinayo waa mid ka mid ah askarteennii wuxuu samayn doonaa discover attack check kinga waa qasab marka in laga falceliyaa saasna waxaa lagu qadin doonaa kuwintii okay bal example-ke u dambeeyay aan fiirino example kan sidee ayaan ku samayn karnaa
discover attack. For example korta taxliilin aan ku sameeyno discover check si ku dhici kara hal mid ay ku dhici kartaa bishop kan ayaa sameyn karo oo wuxuu ku aadan yahay boqorkii laakiin se waxa u dhaxeeya qalcadii mid ogow marka discoveryga aad sameynaysid haddaad si sax aad uga faa'iidaysanin oo mid ka khasaare in noqoto that's waxa waaye problem sababta aan saas u leeyahay waxay tahay hadda qalcadan discover way sameyn kartaa oo check way dhihi kartaa laakiin se that's wrong waa qaladtaas sababta maxay tahay horta waa la dili doonaa bishopkan then markii aad disho qalcadaas waxaa la dili doonaa askarigan kale boqorkaadii wuxuu ku jiraa halis sidoo kale cadaanka wax faa'iido badan kama aadan qaadanino waxaad ka qaadatay oo kaliya qalcad asna wuxuu ka qaatay bishop laakiinse waa inaad mar walba aad raadaysaa best way wadada ugu wanaagsan aan dib u celiyo black to move ana waxaan arkaa in qalcadan marka koobaad horta discover jag lagu qaato then cidda kaliya dili karto waxay tahay boqorkan markuu dilina uu meesha ka dhici doono casharkii aan soo dhaafnay ee ahaa skewer okay check marka hore boqorka waxaa qasaba inuu ka falceliyo oo ilaalsado qalcadiisii then qalcadiis waan dili doonaa haddii uu dilina meesha waxaa ka dhici doona skewer and that is the solution